tababarkan oo soo diyaariyay xafiiska adeega shacabka iyo horumarinta cududa shaqaalaha ee maamulka magaalada Dhagaxbur ayaa loo qabtay maamulada 10 qabale ee ka kooban tahay magaalada Dhagaxbur iyo qaar ka mid ah shaqaalaha xafiisyada kala duwan gaar ahaan waaxda HRMK waxaana tababarkan daahfuray madaxa xafiiska maayarka ee maamulka magaalada Dhagaxbur mudane Najiib Cabdi Axmed sidii kor loogu qaadi lahaa aqoonta iyo garaadka siyaasadeed ama midka tiknoolajiyeed ee shaqaalaha dawladda guud ahaan tababarkan waxa ka qayb galaya 50 xubnood oo laga soo kala xulay 10 xaafadood ama 10 qabale uu ka koobay maamulka magaalada Dhagaxbur qabale walbana waxa ka socda gudoomiyaha xaafadda iyo maareeyaha xaafadda sidoo kale waxa ka qayb galaya dhammaan HRMyada xafiisyada uu ka kooban yahay maamulka magaalada Dhagaxbur ama xubnaha cududa shaqaalaha maamulka cududa shaqaalaha ee xafiisyada kala duwan ee maamulka magaalada Dhagaxbur tababarkan duluucda ama ujeedooyinka waaweyn laga leeyahay waxa kamid ah sidii xafiisyadu iyo qabalayadu ay bixin lahayn adeeg hufan markanu adeeg hufan leenahay adeeg hufan saddex arrimood baa asaas u ah cadaan isla xisaabtan iyo cadaalad adeeg hufan waa inuu saddex arrimood yeesho guud ahaan waxa loogu talagalay xubnaha tababarkan ka qayb qaadanaya tababarkan markay qaataan inay dhaciyaan xafiisyadii ama qabalayadii ka socdeen duluucda iyo ujeedada tababarka loo qabanayo maaha kaliya inaynu inta maalin kulano garamaan iyo koofiyada la xidhiidha tababar baa qabsoomay sida wuxuu doonaa mira dhal lahayn oo bulshada iyo qofka wuxuu ka bedelay aysan jirin wax faa'iido ma leh maanta marka tababarkan qaadataan haddii waxba aqoontina ka bedelayn adeeg bixintii bulshada aad u haysan haddii waxba ka bedelayn xafiisyada iyo goobihii qabalayada ka tamadaan haddii waxba ka bedelayn wuxuu noqon doonaa waxaan faa'iido lahayn waxaan tababaradan loo qabanayo miisaaniyada dawladda aan ugu bixinayna waxa weeyaan in bulshada garaadkeeda siyaasadeed wax iska bedelo waxaa kaloo dhankiisa tababarkan furitaankiisii hadallo kooban ka soo jeediyey madaxa xafiiska adeega shacab iyo horumarinta cududa shaqaalaha ee maamulka magaalada Dhagaxbur mudane Khadar Cabdiraxmaan Ibraahim maanta waxaan u fadhinaa halkan inaynu calashaan tababar aynu ka furano soconayo muddo 2 cisho xubnaha ku qaadanaya guud ahaan waa 50 ka kooban maamulada hogaaminta qabalayada iyo xafiisyada xubna ka socda xafiisyada shaqaalaha dawladda tababarkan ujeedadiisu waxa weeyaan maamulka suuban iyo kaydsanka haddaba xafiisku isagoo ka duulaya ujeedooyinka uu asaasan yahay ee loo dhisay ayaa waxa laga maarmaan noqotay in tababar loo qabto xubnaha hogaaminta qabalayada iyo xubno ka mid ah shaqaalaha xafiisyada si kor loogu qaado tayadooda aqooneed si ay bulshada loo adeegayo u helaan adeeg hufan shacabka aynu adeegayno si ay u helaan adeeg hufan ayaa hawsha in tababarkan aynu u qabsoonay tababarkan oo socday muddo 2 maalmood ayaa qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha maamulada iyo shaqaalaha xafiisyada waxay ka warbixiyeen tababarka inay si gaarsiin doonaan qaybaha kale ee shaqaalaha si loo kobciyo adeega shacabka tababarkaas oo laga soo kala xulay hogaaminta qabalayada ee maamulka magaalada Dhagaxbur iyo HRMyada xafiisyada maamulka magaalada tababarkaas ku saabsanaa maamulka suuban iyo faa'iidooyinka uu leeyahay maamulka suuban iyo dhibaatooyinka uu leeyahay maamul xumadu markaas maanta si toos noo bilaabay faa'iidooyin badan oo ka helay insha Allah marka xafiisyadana ku noqonana waxaan naga go'an inaan hirgelino waxaan diyaar u nahay waxyaabihii aan ka faa'iidnay tababarka inaanu mataqaanaa aanu la tagno oo ka hirgelino ayaan diyaar u nahay oo nagu adeegno bulshadana